labadii qof oo isku dhacdaba bahashii ceeb ahayd ayaa lagu halgalaa bal horta ila daabo muuqaalkan koowaad waxaan la arkay xabso oo live soo gashay waxyaabo badan ka hadlaysa aniga iyadana dhex maray laakiin qodob bay dhahday hana ila daabo muuqaalka ku xiga telefoonkiisa ee xoog kalsooni iyo ka adkaan aan ka adka ugu qaado okay telefoonku waan sheegay marka waxa arkay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق وعبساق حاشي حلقة نقل سعودتانا و تك تك channel اسكدك دقا محومي ما انت وحايدين هايا عيبتي فضيحدي ووينيد احمرته لوقف او صومالي او سوشيال ميديا عنك I'm sorry waa ka xumahay hotor hal xabo ayaan ka xumahay waxaan ka xumahay waa in marka hore siraha la isdhaafsado kadibna la isku soo qarxiyo yes waa wax aad u aad weyn bal Xamsa iyo Hanad waxay ahaayeen laba qof oo social media caan ka ah asxaab ah saaxiibo noqday heer shukaansi heer lagu ballamay guur laakiin saacadii finaalka ahay lagu kala booday bal marka hore waxaan ku horumarinaynaa gabadha careysan ee aadka u xanaaqsan ee laga daldoorsaday waa laga daldoorsaday aan dhihi lahay eladaa marka hore gabadhan telefoonkiisa ee xoog kalsooni iyo ka adkaan aan ka adka ugu qaado okay telefoonku waan sheegay marka waxa arkay telefoonada dadka dafaa okay telefoonada wixii ka arkay naagtan yaa waxa ku dhahay naagtay hore waaye waxaan December waaye micna aan wax ma soo aqrisanin miya waxaan waqtiga inay tahay bisha la soo dhaafay u jeedinaya marka soo bixaysa ay iimaanaysi ama caalaha naag la jooge video la sameeyay snapkaaga geline markaas aan iimaanay maxaa tahay horta teeda kale waxa sidaa ninkan ishiisii ka soo bixin ninkan saan wixii yaa kaaga daray boqol adiga qurux badan ka sharaf badan ka lacag badan ala socda okay but adiga waxay ka ahayd like xabsada ku jacashay xabsada saan ala alkaaga waxa waadi ilowday soo marka telefoonkiisa uga qaadan gabadha waxay ku haystaa wax kala maahan waa masayr meesha ugu xumeed gaaray anigu laakiin waxa xabo aqligayga oo diidaa jira mobilkaaga daas kale telefoonkaaga adigaas kale keedana agadaale kaaga sira badan oo ku jira naraga tahay waxa soo qasi kartaa maxaa dayacay bila password maxaa dhigahanado waa su'aasha koowaad su'aasha labaad waa maxay kalsoonida intaas la eg ee aad ku qabtaa gabadhan maantay aad sawiradeeda banaanka loo soo yaaciyay adigoo saan u yeelaya aadna kala u dhiibtay waa su'aasha labaad oo aan qabo bal Hanad muxuu ku hadlayaa asaga ra'yiga dib aan ka hadli doonaa bal asagana dhageysano waxaan la arkay xabso oo live soo gashay waxyaabo badan ka hadlaysa aniga iyadana dhex maray laakiin qodob bay dhahday Hanad bay dilay no ma dilin ilaahayna waa ka markhaatiyaal la wajho gacan uma qaadin aniga xabso goortiisu ku dameysan ilaahayna waa wiye xasan kaafi bay shirqoolay tiimkaas bay dilay no ma jirto waxaas oo dhan been weeyaan xabse gabadh walaashay way ahayd shalay toole maanta cid iga dhow malaha intan waxa isu qornay intan waxa isu dirnay maanta halkaasaan ku haya mawlkii ku jirta marna kuma fikirana soo bandhigo laakiin ayada garaadkeeda hadduu siiyey markii aan gabadh aan dhahayn taa inoogu joogo arrinkeena oo gabadh halkan joogta aan xidhiir la sameeyey maseerkii walaal gacli hadduu halkaa ku gaadhsiiyey oo aad u karkaarka weydaartay aniga nin ragaanay walaal macaanay weli waan isxijin karaa walaashay baa tahay hooyadaa baan xeerinayaa walaalkaa baan xeerinayaa dadkii gobonimada shalay toole aan isku baranay ugu soo dhaweeyay baan xeerinayaa ma fahantay haddaad adigu dheeqaysatay ama Hanad bad maanta wuxuu geystay ceebaysatay haba yaraatay wax idin geystay malaha gabadh walaashaya bad sawiradeeda meesha keentay gabadhaasna ma ogid inaan qabay waxna dhex maray ma ogid in calafkiyo guurkana ilaahay baa haya iyo qofku cagtu meesha dhigaysaba haddii isku fahmi weynay aan dhahay walaalay si wanaagsan oo gobonimo la aynu ku kala urursan oo aynu ku kala baxno meel kale aan xoogaa barkimada yar dhiganaya de walaal inaad karkaarka weeraato may hayn oo waxaas u dhan sameeyso hasaatay maanta aan gobonimo ka raacaya lagama yaabo mar dambe inaan ku soo jawaabo lagama yaabo laakiin waxaan adkeysan waayay xasan kaafi baa shirqoolay tiimkaas oo Hanad bay dilo fadhi la dhacay been way waxaad ka jirta malaha
wax ka jira malaha maalintaad aniga intaad maseertay aad carartay aad guriga gashay oo aad qolka isku soo xidhay aan kula baa qolka iga fur xabsay fur qolka aan kula walaal iga fur maalinta markaad iga furtay baan ku dili lahaa laakiin gacan kuma qaadan xaasha lillah dhaqankaasna malihi ee waxaan ku leeyahay waxaad dhigatay un baad dhitaysatee ka dambaad saaroosi doontaan balse isuu kahaleynay doonaan waan ku salaamayaa nabaday waayahay warkaas wuu cad yahay oo hanad uu sheegay hanad warkiisu wuu cad yahay wuxuu kii dambe aad guursato baa arki doonaa meeshaas la martaan haatan waxaa ogahay gabadhan intay Nairobi joogtay inay soo bandhigtay wiilal badan oo hanad uu ka mid yahay oo leedahay waa isqabnaa saaxiibaan lahay waa isla noolnahay balaa 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 wax badan ay tirinaydo laakiin waxaa la yidhi cagti joogsabaysaa mar bay ceeb la kulantaa sababta saas u leeyahay khaladka waxaan saarayaa 100% hanad waxaan 100% ku saarayaa asagoo og social mediaha xaaladda ka jirta asagoo og dhibaatada social media ka haysta dhalinyarada inuu sawiro telefoon ka buuxsado haddana qofka uu rabo uu u dhiibo macquul maahan bal hadda gabadha masaakiinta gabadhan oo hadda la sawiran asaga gabadhan aabba dhalay hooyaa dhashay walaalay leedahay asxaabay leedahay waa arkaysaan soo shuminayo waa arkaysaan xaaskiisa ha noqoto wax xirta ha noqoto shaqadeeda maani laakiin aamin iyo kalsooni ay isaga ku qabta ayay sawiradan ugu dhiibtay yes ragga maanta joogo waxaan la yaabanahay maxaa looga leeyahay hal nin oo santuuq ah wax qaraya waa ayaga dhan wada banaanka wada furma noqday yaa badana waraggi waxay ma noqdeenba santuuq furanoo afka ka furanoo wax allaala wixii ku jira banaanka u baxayo macnaha gabdhaha marka hore nabadgeliya haddiiba aad xafidi karin xaaskaaga ha noqoto walaasha ha noqoto waxartaa kuu noqoto saaxiibta ha noqoto balday meeshaan qoraalkii muuqaaladii dhammaan wax qarsoon ma lahan familigeedii intii ka gelaysaa waa under age waa 18 19 dhowr jiro waa gabar yaro qurux badan that's sawiradii ay u soo dirtay that's wixii oo dhan aa banaanka socda marka muxuu yahay hanad bari wax uu ku hadli doono yacni hadda gabadhan waalid bay leedahay walaal bay leedahay asxaab bay leedahay wixii oo dhan la soo qarxiyey muuqaaladii dhaa banaanka loo soo bixiyey waan ka xumahay in gabar Soomaaliyeed ayadoo nin ay jeceshahay darteed u yeelayda inay saa u gasho aniga xabsu waa ka xumahay waxa ay samaysay wax jirana maahan waayo maanta xabsu ani ma jecli jirkeeda meel yaro kamida in la soo bandhigo ma jecli waa gabar walaasheena waa gabar Soomaaliyeed laakiin inay gabar Soomaaliyeed ay ku dhiilato hanad ayadoo ku xumeynayda inay soo baxeedo waayo hanad wuu xafidi waayaba mar hadduu xafidi waaye waxaa la rabay inay mataqaanaa ayada xafido maadaama ay gabar walaashii tahay dumar tahay ee qiimeeyo dumarnimada ayna xafido maadaama uusan tuq noqon waaye hanad bal arag raaxada adduunka dhibaatada waxay ka haystaa ruuxaa jeceshahay yacni qoraaladay u soo direedo iyo kalsoonida ay ku qabto ayaan islahaynba iyo sida uu yeelay uu baabi'iyey mustaqbalkeedii sharafteedii iyo dadkii yaqaanay iyo deegaankeedii iyo wixeedii dhan absolute maanta baraha bulshada waxaa ka taagan ceeb dhalinyarada Soomaalida haysta ama rag ahaadaan ama dumar ahaadaan anigu waxa u maqarinayo sidaan waa qalad in sidaan gabar Soomaaliyeed leeyahay waa qalad raggana waxa ogaaday inaysan baahayn santuuq xiranoo wixii rabaan aysan ku ridi karin dumarka maraba muuqaalkii inuu sii bato waxaan leeyahay hanad walaal waa ciwuday gabadhaas xaal mari haddii shalay aad guur kula jirtay guurka ka dhaway
maanta adiga kuu sumcad beeshay adigaa baabi'iyey mustaqbalkeeda adigaa maanta Soomaali oo ogna xaaladeeda meesha joogaan adigaa soo gaarsiiyey gabadhaas marka waa inaad gabadhaas aad xaal maridaa يعني هرنا حفصو أرنتي ذوقت ما نخوق شيء وأنا قاطع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.